gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucde gobolka saaxil marwarood axmed yaasiin oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta ugu waramaysay xafiiska uu xisbigu ku leeyahay magaalada berbera ayaa waxay ka hadashay shaqaaqa xalay fiidkii ka dhacday magaalada berbera taasi oo ay ku geeriyootay allah u naxariistay gabadh lagu magacaabi jiray xamda halka uu ku dhaawacmayna sacad maxamed faarax qabiile oo ah wiil uu dhalay xildhibaan maxamed faarax qabiile oo ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland shirkaasi jaraa'id ee ay qabatay marwarood axmed yaasiin gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucde gobolka saaxil waxa uu dhacay sidan waxaan shirkan jaraa'id u qabtay anigoo ah gudoomiyaha xisbiga ucde ee gobolka saaxil shalay gelinkii dambe fiidadkii mashaqooyinkii ahaa dhacdooyinka loogu talagalay inay gobolka saaxil iyo degmada berbera ay ka dhacaan oo ah shirqoolo hore loogu guuleysan waayay in lagu dilo xildhibaanka golaha baarlamaanka maxamed faarax qabiile kaasoo hore loogu qorsheeyay in dil xukuumaddu u qorshaysay inay dil ku dilaan loona saaray cid oo ay ku qaateen ciddaasi inay fuliyaan dilkaasi tii markii laga soo waaday ee ay xukuumaddu waxba ka qaban weyday lana arkay in la dambabasaya arrintaasi ayaa arrintii hore ee fuli weyday wadi waxa la daba socdaa oo la yimi arrintii in laga fuliyo haddana gobolka saaxil degmada berbera waxaa shalay ka dhacay halkaasi dil ay ku dhimatay gabadh iyo dhaawac lagu dhaawacay xildhibaanka inankiisa sacad kaasoo uu geystay ninkii maalintii hore xildhibaanka ku toogtay Hargeysa oo uu kula jiraan raggii maalintii hore falka kula jiray wasiirka amniga ee maalintii hore falka ku jiray iyo kuwii kale ee ay qaar gobolka yihiin oo ay imikana soo dul istaagayaan problemka iyo dhaawaca iyaga oo shirqoolka maleegan inta halkan la isku xareystay la yiri waxa la qaybsanayaa ergooyin waxaan ognahay oo leenahay cid arrinta ka dambeysay oo dhan waa rag tirsan oo la og yahay haddana dadka dul marmarayo oo lagu eeganayo dadka wuxuu geysteen ay og yihiin uu watana gaarigii wasiirka amniga uu wato ninkii maalinta hore dilka ku guuleysan waayay inuu maanta dilkii labaad fuliyo oo gaarigii wasiirka ku fuliyo hubaysan yahayna kana soo kacay halkii ay wada fadhiyeen shalay toogelinkii dambe oo la hayo halkii ay wada fadhiyeen waxaan u sheegaynaa ummadda kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba in aanay jirin wax xukuumad la yiraahdo Soomaaliland ee ay tahay xukuumadda u qorsheynaysa xildhibaanka kaliya ay iibsan kar waayeen markii ay lagu khasaaray xildhibaanadii ka soo baxay gobolka saaxil iyo qaar ramid oo gobolada kale ka soo baxay ee ay noqdeen qaar la iibsado sida ciyaartooyga maalin ba qol iibsato kii la iibsan kar waayay ee garanayay wixii loo doortay in loo sameeyo shirqoolo dila oo maleega oo la gaarsiiyay ilaa reerkiisa iyo dadkii isagu oo dhalay Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.